بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada qaaliga meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada Saar graphics iyo muuqaal cusub. Muqaalkan waxaan idinku la wadaagi doonaa sidee background-ka sawirada uu sameeyaa qaab blur ah. Blur waxa la mar kale iyo Saar graphics waxaan muddo kadib isku soo laabanaynaa in aan isku faa'iideyno arrimaha ama casharooyinka ku saabsan graphic design-ka inkastoo cashirkan aan maanta ku qaadanayn oo yahay Photoshop CC 2018ka. socod wanaagsan muuqaalka dhameystiran waxaa durba soo gashanaysaa saad igula socotid sawir aad rabtid in aad background-kiisa blur ka dhigtid ama isku dartid wax qurxoon aad ka soo saartid. dabcan hadalkayga haddii aad wax ka fahantay waxaa leedahay control J marka la inta control J kan hore waxaan u bixinaynaa model gabadhan waa gabar waxaan uga soo qaaday xijaaban tahay maqaamno marka dhanka wanaagsan ayaan ka casharadeen uga faa'iideysanaynaa. okay layerkan kale dhexe waxaan u bixinaynaa bismillah blur. okay blur u bixiyay midna model u bixiyay. okay midkan modelka ayaan tagaynaa. waxaan rabaa marka hore inaan sawirka doorto sawirka aan meel dhigto oo aan jarto anigoona background-ka wax badan u dhameynin. soo markay la soco waxaan tagaynaa halkan control tagaynaa waxaan dooranaynaa quick selection tool. marka meeshan aad taagan tahay si fiican aad igula socotaa waxaa la dooranaysaa sawirka kaliya si tartiiba maadko waxaan cashirka iska fudud yahay laakiin maadaama inta badan hadda dadka dhalinyarada waxay aad u xiiseeyaan maadaama sawirada ay tahay sawirada qurxoon waxaad arkaysaa sawiro qurxoon si fiican loo soo qaado waxaad arkaysaa laakiin aan edit gareysnayn photography-da inta badan waxba arrintaas ku baraarugsanaa. soo marka waxaan jeclaystay saaxiibada photographic ah inta saaxiibada ugu xiran Soomaaliyeed oo dhan inta jecelnay ka faa'iideysato waa bilaash waa cashir bilaash ah marka ka faa'iideyso ila soco. quick mask aad dooranaysaa. quick mask markaad dooratid waxaa leedahay waxaad iskula qabanaysaa control click ayaa leedahay control waxaad iskula jiidaysaa halkan kadibna click ayaa ku leedahay qaybtaas yar ayaad dooranaysaa. hadda ujeedaan waxaa ii dooran cafwan ii dooran click select max yaa leenahay marka meelaha uu ka gaaray ayaad mararka qaar iska habeynaysaa haddii uu eego jirto. okay yaa soo leedahay marka meeshaan aad taagan tahay okay marka meeshaan aad taagan tahay waxaa sameynaysaa select dooranaysaa modify aa leedahay kadib expand aa leedahay. expand marka waxaa balaarinaysaa inta uu kugu fadhiyo laakiin 15 oo kala leenahay. okay control Z 15 zaid oo badan yahay marka wax yar 8 ka dhig. okay taas way nagu filan tahay. expand markaa dhahdid markaa meeshaan aad taagan tahay waxaa sameynaysaa calaamada left-hand waxaa leedahay leftigaraad muuska leedahay kadib waxaad dooranaysaa fill waxaad dooranaysaa content. okay aa leedahay okay marka meeshaan aad taagan tahay select dooranaysaa select aa leedahay fiirinaynaa background-ka saa ugu jarnay. okay
okay hadda dareemisaan baashan background-ka inuu soo baran yahay oo qof taagnayn afwan background-ka mujida fariiqa dhaxay soo marka hadda waxaad diyaarsatay background-kii waxa kala saaratay iyo sawirkii hadda blur-kan isticmaalina blur-kan soo marka shape-kan layer-kan ugu talagalay blur-kan hadda ku shaqeynayna okay la socod wanaagsan waxaad dooranaysaa filter waxaad leedahay waxaad tagaysaa blur gallery waxaad kasii tagaysaa tilde shift okay kan meeshaan taagan tahay waxaad badinaysaa pixelka blurka okay markaa meeshaan taagan tahay okay hadda meeshaan aad taawanaysaa okay hadda sawirka hadda blur waaye effect yaraa u dhiman oo aan okay markaa meeshaan aad taagan tahay waxaad dooranaysaa new layer okay new layer daqtagano adhehena new layerka waxaan u bixinaynaa light internet ka waa layerkaas baan kasoo magac u baxsato waxaad imaanaysaa brushkana imaanaysaa brushka waxaad dooranaysaa colorkan oo white-ka dooranaysaa waxaad rarwaysa soo furaysaa inta zaa'id u badan yahay waxaa ka dhiganaysaa 140 okay okay brushka markaas soo dooratid waxaad dul tagaysaa halkan click ayaa ku leedahay okay waxaad leedahay control T afan dooro layerka control T de control T markaa dhahdid transform ku samee okay okay halkaan aad tagaysaa normalka ku qoran tahay waxaa ka dooranaysaa screen okay screen kaga dooratid capacity-ga waxyar okay markaas soo dooratid intaas waxaa sameynaysaa okay markaa meeshaan taagan tahay waxaa sameynaysaa waxaad dooranaysaa toolkaas oo filka waxaad ka dooranaysaa color balance
okay marka meeshaan aad taagan tahay aad iska soo xiraysaa okay haddana waxaad dooranaysaa carviska waxaad ka dhigaysaa wada mugdi okay asina iska soo xiraysaa marka meeshaan aad taagan tahay waxaad dooranaysaa brushka okay brushka dooro okay waxyar ku dar brushade kan for okay markaasaan markaas soo doo iftiinkaas yar aad ku furtid oo sawirka xoogaa sida hore uu ka qurux badan yahay hadda okay sida hore ka qurux badan yahay waxaan sameynaynaa dabcan haddii aad intaan ila socotid wax badan waad faa'iideysatay fadlan channelkeena subscribe ino saar like garee muuqaalka haddii uu ku caawiyay labada saaxiibadaada jecel inay ka faa'iideystaan casharada graphic designerka iyo waxyaalaha la xiriira guud ahaan waxaad dooranaysaa hadda sidoo kale solid colorkan aad dooranaysaa waxaad kasii dooranaysaa black wida kadib okay aa leedahay inta imaanaysaa then waxaa leedahay meeshaan waxaa ka dooranaysaa okay meeshaan dooranaysaa okay haddana kusoo laabanaysaa waxaad dooranaysaa gradientka okay then double click dheh afwan waxaad doorataa okay kan dooro markaad dooratid okay soo dheh kan iska soo xir waxaa ka doorataa meeshaan ay ku qoran tahay soft light okay capacity-ga